waxaad ii sheegtaa saddex sababood oo taratid maanta kalsoonida inaad u dhistid maxay tahay balqeex maxay yihiin saddex sababood oo noloshaada wax ka bedelaya waana idin bariya ha igu dhihina waxaan rabaa sidaan gabar ula hadli lahaa iyo sidaan wiil ula hadli lahaa waayo markaa waxaan ku oranayaa haddaad gabar tahay 19 jir 18 jir 20 jir aad tahay haddii waalidkaa dee duruuf kale aysan jirin markaa waalidkaa ay kugu yara dadaaleen ay maaragtay waxbarasho kuu direen high schoolkaagii ma dhamaysay qur'aankii ma dhamaysay haddii intaa aadan samaynin duruuf dhaqaale oo markaa kaa celinaysay aysan jirin tii duruuf dhaqaale ay haysato oo ay ka hor timid waa goonideeda laakiin qofkan duruuf dhaqaale uusan qabsan baan ka hadlaya oo dumara haddaad nin tahay waxaan ku weydiinayaa lacag intee haysataa ma shaqaysaa bil kasta maxaad meel dhigtaa qorshahaaga maalintu muxuu yahay haddaysan kuwaas suuka duba dhacsanayn waa idin bariya waxba kalsooni ha raadinin gabar sidaan ula hadli lahaa iyo wiil sidaan ula hadli lahaa waayo noloshiinni baa dayacan naftaadii hadday dayacan tahay oo taadiba aadan meel ku ogeyn maxaad qof kale u sheegi doontaa qofkan waxaad rabtaan reer la dhisatid sax reerkaa dhisaysaa waa mid noocee ah oo reer qasan oo isdaba marsan oo kala dhacsan oo iyagoo dhanba generationka ay dhali doonaan waxay korinayaan ay isku dhex yaacsan yihiin baad dhalaysaan marka halkaa ha aadin haddayba tahayba kalsoonideyda maxaan u dhisaa waxaan rabaa saddex sababood oo maanta aniga maaha inaad ii samaynaysid naftaada u samee saddex sababood oo maanta aad dhihi kartid kalsoonideyda waxaan u dhisayaa inaan qof wax ku oola noqdo oo maskaxdayda kobciyo oo dhaqaalahayga kobciyo oo noloshayda wax ka bedelaan rabaa dadka badankooda kalsooni darro badan baa maanta haysa waa xaqiiqo shaki kuma jiro dad badan oo waxaa jira maanta la dhibaataysan kalsooni darro markay noqoto dhinaca nolosha inay naftooda wax ka bedelaan wuu baqayaa qofku wuu cabsanaya laakiin isweydiintu waxay tahay kalsooni darradani xaggee ka timid waa laga yaabaa dad badani inay yidhaahdaan kalsooni darradu waxay ka timid yaraantaydii baan silic ku soo koray yaraantaydii baan rafaad ku soo koray yaraantaydii hooyo aabbala'aan baa soo koray iyo wixii la mid a laakiin midagow si kasta oo aad yaraantaadii silic ugu soo kortay ama si kasta oo yaraantaadii aad rafaad ugu soo kortay maanta waqtigan aad joogtid hase yeeshee noloshaadu ay isbedeshay wixii hore dhan waa ka gudub inay ku adkeeyaan qof nool noqotid dee noloshan ka hadlaya waa tan qofku wax qabsanaya karti leh inaad noqotid bay taasu kuu soo diyaarinaysa ilaahayna uu kuula soo gudboonaysiiyo xaaladahaas badi maanta waxaan rabaa inaan hal mid idinku baraarujiyo kalsooni darrada ugu weyn ee bini aadamku ay qabaan waxay ka timaadaa waa isaga naftiisa waa naftaada oo qura meel fogba ha fiirfiirinin waxba marmarsiiya ha doonin waxaan aad qiil bixinaysid excuse kastoo aad keentidba xagga iska dhig naftaada oo keliya ayaa sabab u ah kalsooni darrada maanta kugu beeran waana ku tusayaa intee jeer baad sanadkan bilowgiisii ilaa hadda naftaada tiri waxbaan qabanaya hase yeeshee weli aadan qabanin bilo ka hor waxaad tiri waan qabanaya oodan weli qaban baa jira waxyaabo naftaada aad la damacsanayd inaad samaysid laakiin aad samayn weyday baa jira waxyaabo badanoo waxaa jira nolosheenna keena inay dib u dhac weyn uu ku yimaado taasoo ka dhalatay waxaa tiri waa samaynaya hase yeeshee aadan samaynin naftaadii markay damacda inay wax kale oo ku cusub samayso way baqaysaa waayo ballantii ugu dambaysay ee adiga naftaadu aad wada gasheen maad fulin naftaada baqdin baa marka ku beermaysa waa laga yaabaa adigu inaadan ogeyn laakiin ma dareensanid adigu laakiin tartiib tartiib bay kalsooni darradu u timaadaa waxaad tiraada waan qabanayaa qabo wax kaa hor istaagaa yuusan jirin haddaad tiraada waan qabanaya dabcan hadday kelmaddaas afkaa ka yeertay shaygan waad hubtaa inaad samayn kartid hadday dhaqaalo tahay hadday waqti tahay hadday xoog tahay waad samayn kartaa samee laakiin markaa naftaadii been u sheegtid oo tiraadi waxaan waan samaynaya hase yeeshee aadan samayn jiimkaan aadaya jiimkii maad aadin shaqaan raadsanaya shaqa maadan raadsan waxbarashaan bilaabaya weli maad bilaabin maxay tahay waxaan kaa hortaagan ee kuu diidaya maxay tahay dad qofba qofka uu ka geesisan yahay waa ka kalsooni badan yahay sideedana kalsoonidu waxyaabaha ku dhisanta ama ku timaado waxa ah qofku inuu shayga sameeyo waxay kula tahay dadka waxyaabahan ay samaynayaan ee maanta aad la yaaban tahay waxay kula tahay inaysan baqdin ku hayn markay bilaabayeen way ku haysay laakiin ilaahay goormuu ku kaalmaynaya markaa baqdinta adiga kugu jirta aad tiraadid ilaahay baa ila jira waxa kan way hagaagayaan oo aad markaa ku dhaqaaqdid haddaadse bil kasta sanad kasta asbuuc kasta beentii naftaada ula soo taagan tahay kalsoonidaadu weligeed ma imaanayso waxaan u maleynayaa dadku mucjizo inay kor uga soo degto dadka qaarkood waxaan arkaa yidhaahdaa kalsoonideesaa ku dhisaa waan la yaabaa markaan arko kalsoonideesaa ku dhisaa waan la yaabaa waxaan ula yaabaa waa hal shay oo keliya waxay rabaan inaad u sheegtid tallaabooyin ay qaadaan oo kalsoonidu ku dhisanto tallaabooyinka marka dhammaantood haddii lagu sheego xataa waa inay wax kama jiraan tan unbay ku soo ururaysaa oo ah adiga naftaada markay wax samayso unbaa kalsoonidu imaanaysa laakiin intaa meel fadhidid ama comfort zone-kaaga aad dhex yururtid waxba isma bedelayaan
kalsoonidu waxay ku timaadaa waa adoo baqaya samee dadka guulaystay maanta nolosha ka maaragtay meelo badan ka gaaray wax sameeyay aad arkaysid dhammaantood iyagoo shay walba ka baqayay galeen isagoo ka baqaya inay lacagtaas ka gubato ayuu businesska bilaabay isagoo ogina sanado badan ku qaadanaysa naftiisu ay diidan tahay ayuu waxbarashada bilaabay isagoo oo og in aysan u suurta gali karin oo macquul tahay inuusan meesha gaari karin ayuu shay walba qorshihiisa bilaabay ka bacdina wuu galay baqdintii way iska dhamaanaysaa markaad wax yar wadid kalsoonidu marka waxay ku dhisantaa beenta naftaada ka daa waxaadan samayn karin awoodeeda lahayn waan samaynayaa ha oranin dhibaatada kale dad badan haystaa waxay tahay they do a lot of stuff that does not add any value to their lives waxa aad qabanaysid noloshaada qiimaheeda kor hadduusanba mar u qaadayn iskaga tag waxaan aad mindlessly iskaga jirtid tiktok maantana hadba video dad baa maanta dhan waxay qaarkood dembiyo aakhiro lagu soo taagi doonaad ka qaadaysaa xataa waxaan dad la xamanayo waxaan dad wax laga sheegayo waxaan dad maanta dhan lagu dhagan yahay adigu waxaad dareemaysaa sida maaragtay xaraarada dadka balwadda leh qabato oo kale buu ku qabanaya maanta dhan ceebaha dadkaad ku farxaysaa adigu waad ismoodaysaa inaad ku farxsan laakiin ku farxsan tahay sababtoo waad raadinaysaa waxaad leedahay channelka shalay waxaa la soo geliyey waxaasaa lagaga hadlayay maantana waad raadinaysaa waxaad rabtaa musalsalka ceebaha bini aadamka inaad maanta dhan la socoto update ka ahaatid quality noocee ah ayay noloshaadu lahaanaysaa bay kula tahay just think about it for 1 second ka fakar xisaabtan saacadahan tirada badan ee aad gelinaysa internetka haddaadba internetka kolley gelinaysid waxaa jira waxyaabo badan oo aad xirfadaada ku kubcin kartid maanta hal xirfad oo aad jeclaan lahayd ma jirtaa internetka ka raadi see what you can do about it hadday dhaqaale kaaga baahan tahay bal haddii dhaqaale aad heli kartid haddii ay waqti kaaga baahan tahay bal waqtigeedii fiiri inaad heli kartid oo waqti gelin kartid haddii dabcan waqti badan baad haysaa haddaba internetka waqti gelinaysid kolley maxaa noloshayda uu ku soo kordhinayaa videogan intaanan daarin maxaa ay noloshayda ku soo kordhinaya intaanan pagekan furin intaanan shayba furin noloshayda markaan hadda internetka ay noqoto inaan galo waxaan isweydiiyaa muxuu igu soo kordhinayaa beenkuuma sheegaya aniga ayuuba kula hadlaya channelkayga hadda dhaweyd baan furay computerka waxaan halkaas dambe waad uga jeedaa haddaan furay 6 beri oo isku xigta computerkayga ma furin sababtaan u furay maxay tahay waxaan isweydiinaya maxaa macno leh oo ka dheefaysaa nothing haddaan nasanayo waa nasanaya ka bacdina waan seexanaya markaan hurdadeeda ka soo kaco cibaadaadkayga aan tukado waajibaadka ilaahay saaray aan gudo danahayga kala raacanaya videoga waa soo geli halkaas ay ugu dambaysa wax faa'iido iyo nuxur iga jira ma jirto inaan videogii aan channelkii galo ama internetka aan dhexda dabaasho telefoonkaygaas in yaroo bare ku jira waa laga yaabaa inaan firfiriyo laakiin intaa ka bacdi uma hayo haddii kale haddayba dhici lahayd ayuu internetka maalmo iskaga jiri lahayd waxaad arki lahayd anoo dadka ku dhegan oo intaa hadda maalinba qof ka faalloonaya anoo noloshaydu faallo badan ay u baahan tahay faalladaasoo anigu ay tahayna nafteeda u jeediyo marka naftaada la xisaabtami weydid ogow dadka kale ku mashquulaysaa noloshaaduna halkaasay ku macno beelaysaa waqtigan aad gelinaysa dadka kale naftaada geli wax akhri oo wax akhrintu maskaxdaada kobcinaysa oo qofnimadaada dhismaya oo sida dhaqaalaha maanta iskuul hadaad dhigatid ama jaamacad dhigatid weli maadaama lagu dhigay lacagta sida loo save gareeyo ama lacag meel loo dhigo ama kayd maaliyadeed loo abuuro kuma baraan jaamacaduhu sax laakiin videoyo badan baa youtube-ka ka helaysaa sida lacagta loo maareeyo videoyo badan oo waxaad ka helaysaa youtube-ka sida waqtiga qofku waxa uu ku qaban lahaa kulle waqtigu waa socdaay uu u samayn lahaa jadwal u dhisan lahaa waxyaabo badan oo noloshaada aad ku kobcin kartid heer sarena kaga dhigi kartid oo aad ka baran kartid baa youtube-ka ka buuxa laakiin inagu badankeen waxaynu daawanaa wax qashinoon macno lahayn haddii runta aynu isu sheegno marka waxyaabaha aan macnaha lahayn ee noloshaada aan qiimo ku soo kordhinaynin ka go waxyaabaha himadaada dilaya ka mid tahay waayo maskaxdaadu ma rabto ma shaqaynayso waxay raadinaysaa waxay qabato balwad buu u noqday internetkii maanta dhawaa dul taagantay waxa ka faa'iidana ma garanaysid intaasoo saacadoodna asbuucii way ku dhaaftay ragga facaa ahi meeshaad adigu internetka dul yuurutid oo marna gabar niikadeeda iyo dabadeeda aad daawanaysid ama qaawanideeda walciyaadu billah xaaladaha qaar ama niikadeeda iyo waxay samaynaysaa aad daawanaysid ragga facaa ahi intaasoo $100 bay saacaddii samaynayaan aawi xisaabtankaasu waa laga yaabaa shaydaanka hadda kuu imaanaya wuxuu ku leeyahay soomaaliyaad joogtaa graduation baa lagu shaqeeyaa 100 marmarsiiyo oo naftaadu intii sane ku soo dhaaftay ee ku silicsanade god hadda gelisay buu ku sheegi doonaa Soomaaliya dad badan oo maalqabeennaa baa jooga weligoodna wadanka aan ka bixin rag waxaan garanayaa maalkoodu moolasha Muqdisho ku yaala rag ba iskale baan garanayaa weligoodna aan dhaafin wadanka aan meel uga bixin subhanallah himadii bini aadamku ku kala tageen waxaan aad daawanaysid jar ee macna darada
qashinkan waayo ninkii ragga ahaa maanta ninkii ragga ahaa hadduu gelina gabar dabadeeda daawanayo inta yare waqti u soo hartayna dhowr saacadood maalintiisa ay gelayso inuu biyo iska daadinayo oo gacantiisa isticmaalayo maxaan iradaa inta kale waqti u soo hartayna ilaa lafihiisa iyo jirkiisa oo dhan baa daalane uu ka bacdi daawanayo waxaan macna darada internetka lagu hayo bal subxaanallah filin baa daawanaysa filinku waa been waa la soo qoray dad baa ka soo shaqeeyey waa la soo jarjaray sida adiga kuu cuntamaysa maskaxdaadii attentionkaaga loo soo jeedin lahaa baa loo soo habeeyey waa lagu hor keenay been baa daawanaysa حتى فيلمدان waxaan xabada dhacay qabababa adarkiisu waa been brankigan adaawanaysi waa wax la isla soo jiray subhanallah bal muxuu igu soo kordhinayaa brank aan daawaday hadda nothing waxba igu soo kordhinayo illa marka qiimaha waayo hadda in badan oo idinka mid oo daawanaysa qiimaha naftiinu ay leedahay ma garanaysaan illa aad macna darada ka deysaan kalsoonidaaduna ha sugin inay dhisanto waayo maskaxdaadu meesha ay kalsoonidu dhismi lahaydba waxaad ku foorartaa shaashad waliba waxa ka socdaana aysan qiimo lahayn noloshaada haddaadan xisaabtamin cidina waxba kuma qabanayso qofna intuu ku yimaado kuma oranayo waatana lacagtii hoo kasaa laga yaabaa 25 sano markaa gaartid baa laga yaabaa hooyada oo suuqayaan ku gadinta oo tagtina tira hoo inaan guursadaan rabaa ay hooyada kula yaabto waalidiintii qaarkiin soo idin lama yaabaan intay saa ku fiirsa kor iyo hoos kuma tiraado maande dacaskaagii baan wali gadi lahaay maxay tahay guursanaya maana hartayna hadda aad culays kale uga diga saarto hooyada wali kuma dhin isma ceebsan sax iska sii daawo brankiga inta 29 sano ka gaaraysid 30 sano ka gaaraysid iskaga jir iska daawo daatada halka ku dhamayso dollarka geli mid badan oo isagu naftiisa maaragtay wax u qabanaya oo naftiisa iyo danihiisa ka shaqaysanaya ba adiga ka dul shaqaysanaya adiga oo cilla iska fadhiya waaguna wuxuu ku bari doonaa waqti aadan naftaada waxba ka qaban karin si kalsoonidaadu marka iyo dadnimadaadu ay u dhisanto kow ha aadin cid kale wala sheekha soo dhageysan wala aniga xataa hay dhageysan kalsooni sana loo dhisadaan korada ha dhageysan videoga iska gudub skibid waxa u baahan tahay waa naftaada inay beenta isu sheegayso iska dayso khiyaaliga ay ku nooshahay inay iska dayso shukaansiga macna darada iyo murankan taagan ee aad maalin walba gabar la murmayso gabarada waxba weyn baad la murmaysaa waanu isdagaalnay waanu iskeeni laanahay de waxa ma haysid midna ogow rag badan oo Soomaaliya joogo ama Afrika joogo ciil baad arki doontaa hadaadan maanta meesha ka kicin rag badanna waad aragteen internetka marxaanti u ah oo waad aragteen nin kule 3 sano 4 sano gabar la socday nin Mareykan ka tago warehouse ka shaqeyn jiray oo laga yaabo $13 inuu ku shaqeeyo laakiin dhowr xabo bidaar la asita ayaa intuu yimaado gabadha ka qaadanaya hadhow oo marka meelaha fariiso hadba saaxiibada stress ku dil waxaad tiraahdaa gabadhii baa layga qaatay maxaad sugaysay badar baad cunaysay waad mashquulsanayd sax haddaba hurdada naftaada ka kici waxaana ogaataa qof bini aadama oo naftaada bedelaya ma jiro haddaadan adigu isbedelka naftaada la doonin waxaan u malaynayaa waana intaa ka badan inaysan jirin inay idigu filan tahay baan jeclahay maanta waxyaabaha naftaada dayaca baday silaca geliyey ka go taasaana danta kugu jirtaa ilaahayna dhammaanteen hayna wada kaalmeeyo meel kastoo caalamkaad ka joogtaanna wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh